bulshada ku dhaqan magaalada Gabiley ayaa olole nadaafadeed ka bilowday magaalada Gabiley howlgalkani oo ay si ballaaran uga qayb qaadanayeen shacabka ku dhaqan magaalada Gabiley kuwaasi oo kaashanaya shaqaalaha dawladda hoose ururada bulshada sidoo kale waxa qayb laxaad ka qaadanaya ololahani nadaafadeed xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley iyo maayirka caasimadda Gabiley howlgalkani ololaha nadaafadeed oo saaka subaxii hore laga bilaabay magaalada Gabiley ayaa sidoo kale waxa lagu beneeyay wadooyin xidhnaa oo ay xidheen geedka loo yaqaano kalidii noolaha kaasi oo farabaan ku haya qaybo kamid ah xaafadaha magaalada Gabiley waxaynu joognaa gabagabadii ololihii nadaafadda aynu maanta bishu tahay 26 aynu ku ballansanay inuu ka sameeyno magaalada Gabiley guud ahaan runtii ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala ugu mahad celeynaa sida qiimaha leh ee uu noogu dhacay maanta ololahaas 6 saaka ilaa iyo saacada aynu joogno koodiyo barkii meelaha ku beegan dadweynuhu waxay ku hawlaayeen hawlgalka ololaha nadaafadda waxaan aad ugu mahad celinaynaa xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan shaqaalooyinaha dawladda hoose dadweynaha kala duwan ee reer Gabiley waxaynu u baahanahay inaynu nadaafadeena xoojino toodaranaana waxa weey kol hadii roobku da'ayo waa inaynu nadaafadda iyo qashinka meelaha yaala aynu aad iyo aad isaga ilaalino waayo si yar oo fudud buu waqtiga roobku doo xanuunadu ku dilaacaan hadii markaa qashinkii aad xaafadaada ka soo qaaday intaad ku shubto biyaha gurigaaga maraya ama doox waxa weey dhibaato weyn bay noo keensanayaan waxa ka warqabtaan in shaqaalaha nadaafaddu aroor walba salaada subax marka la tukado ay xaafadaha soo galaan afarta xaafadood afar gaari iyo shaqaalahooga ayaa kala gala 10 kaariyoona iyo 10 shaqaale aroor walba idin soo kalaha intaasiba bilaash bay idinku shaqaynayaan waxay u soo kalahayaan waa in qashinka idinka ilaaliyaan oo idinka guraan ku talagalkii maalinta ololaha nadaafadda aad baan markaan kormeer ku soo sameeyay afarta xaafadood iyo shaqaalaha dawladda iyo shirkadaha iyo uqaasha culimaadudiinka dadweynaha عاشقوشدا دلال iyo malaalka looba kala harin maanta gudoomiye runtii waxa weeyaan maanta waxaanu qaadnay oo la balaaran maanta tahay bishu 26 wallaha oo daarnaa ujeedadu daarnayd sidii magaalada aan nadiifin lahayn iyo ujeedada labaad oo ahayd sidii aan wada banaan sameyn lahayn runtii afarta waaxood ee afarta xaafadood ee magaalada ku kooban tahay afartaba uu ka socday gudoomiyaashii xaafadaha way hawshaas way ku wada guda jireen waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case Somnews TV Gabiley